حاسسكنا أولادنا أدوغنا حيث أدوانا ذا قيمة بدل لنوسي نيسان الله سبحانه وتعالى إيما الأكتي سبحانه كوجع لذان شغل الفاضل وقبر ير أو دائر وشندل وحا إلا ذا هاي مرول بأو أن عنوق ألوه أبا أن أوريشوه من كيقوا وكنحا malahan aragti dheer oo uu ku rabo ama uu rabo inuu mustaqbal ku samaysto waxaan weydiiyey ujeedada uu ilmaha u diidayo ma waxay tahay inaad wax barato ma waxaad rabtaa inaad shaqaysato ma waxaad rabtaa inaad lacag yeelato laakiin ilaa iyo hadda waxay leedahay igama uusan jaahil bixin danta uu leeyahay mar walba oo aan uur yeeshana wuu ka naxaa oo waxa uu yidhaahdaa maxaad uurkan u yeelatay aniguna waxaan jeclahay inaan ka faa'iidaysto inta aan da'yarahay ilmana ilaahay isiiyo ilmahaasina ay noqdaan kuwa adduunya aakhiraba aan ku liibaano waxay leedahay dhibaata nama haysato Afrika iyo dalkii ma jirnay waxaan joognaa wadamadan reer galbeedka ah hadduusan xataa isagu waxba nasiin waxba nagu filan ay leedahay dawladdu waxa ay nasiiso iyo wixii kale ta ilaahayna soo geliyo oo dhibaato dhaqaale ma qabno mid caafimaadna ma qabna ay leedahay hase yeeshee ninkaygu ma jecla inaan ilmo dhalo daa walbana waa uu ka naxaa maxaad nagula talinaysaa ayay ku leedahay sheekhuna alfaadil falyatafaddal mashkuuran wamaajuura alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam gabadhaasi saa'iladaasi su-aasheedu waxay wakiil ka tahay dad aad u fara badan oo wakhtigan xaaliga ah ku nool waddamada reer galbeedka arrinkani markii ugu horraysay ma aha oo ay dhagahiga ku dhacaan bal waan la noolaaday bal waan arkay in fara badan ayaan arkay sidaa daraaddeed ayaa waxaa ku soo badanaya waddamada reer galbeedka dadka ku nool ee muslimiinta ah inay ku milmaan mujtamaca ay la nool yihiin mujtamacan ay la nool yihiinna waa awlaaddoodu 2 iyo 3 midna ma dhaafaan oo waa idinkaba marag iyo makhraati ayaad ka tihiin waa inta badane sidaa daraaddeed horta waa mas'alo la xidhiidha ghaswatulfikri waa duulimaadka maskaxeed ee muslimiinta lagu soo duulay khilaafsanna hadalkii nabiga sal alla alay wasalam tazawaju alwaduud alwaluud fa innii mukaafirun bikum alumama yowma alqiyaama war gabdhaha dhasha badan guursada waxaa weeye qiyaaman idinkaan ugu faantamayaa ambiyada ayuu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam bal guurka waxaa ka mid a xikamka loo guursado ilaahay hadduu awlaad ku siinayo horta in awlaad la helo oo dhulka lagu camiro haddiiusan nebi aadam iyo hooyadan xaawo isguursanin oyna carruurta ayna dhalin haddiiusan ummaddu ayna tarmin maanta asagu ma dhalan lahaa asaga laftiisa ma dhasheen waxaan marka rabaa inaan dhaho horta waa meelaha la joogo midhaha laga gurtay horta midhaha ugu yar wey midho badan baa laga guran doonaa oo ay gablan tahay xataa kuwa la dhalay ee meelaha lagu dhalay waad garan kartaan mustaqbalkoodu khatarta uu ku sugan yahay waaba haddii la dhalay waxaan doonayaa marka inaan ku cujisiiyo oo aan dhaho ninka adeerow walaalow adeerow walaalow saaxiibow horta awlaaddu waa hiba waa nicmo ilaahay bixiyo ma og tahay inay in badan intaasoo kharash ay ku bixinayaan dhakhaatiirta adduunka ugu qaalisan inay ku bixinayaan waxay nool iyo mood ay haystaanba inay ku bixinhayaan siday ilmo ku dhali lahaayeen qaarkood la yidhaahdo caloosha intii kan shahwada laga soo qaado kan kale ha lagu tallaalo meeqa ayaa la seexan la oo meeqa ayaa welwelsan oo walbahaarsan oo gacmaha kor u taagaysa oo sujuudda ku ooyeysa oo ilintu ka daadanaysaa bes inay ilmo ay dhalaan naxariistooda ay ku dareemaan oy hoosta geliyaan oo qurratul cayn u noqdo oo adduunyadana ay ku mashquulaan oo ay tarbiyeeyaan hadday u sakiiraanna ay aakhare oga horreeyaan hadday ayagoo waaweyn ay ka dhintana intay tarbiyeeyaan inay adduunyada ugu soo duceeyaan kam meeqa yahabu liman yashaau inaasan ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما قفكو الله دونا ما دلا أيو كدغا ما أكتهي إن الملق الرادين أيو بلدنا تيسير هذا إلا الرادين أيو مياذا النعمة كالشكريين سؤال سؤال شكل أذيرو والآرو إنا أذير وحان ربا إنا كله ما أكتهي المهان آدمان تديديسو إنا يكو أنفعياني إنك لبري والله ninbaa wuxuu igu yidhi ilmo yar xaaskayga uur qaaday aad baan oga naxay buu yidhi inay xaaskaygu uur qaaday
waa la dagaalamay buu yidhi hase yeeshee ilmihii baa dhashay xataa haddana la joogo wallaahi ilmihii mar walboon arko oo hoosta iga soo galo oo uu aabba i dhaho oo mataqaanaa ma cisiiyo wallaahi qalbiga igo-abi subxaana allah nacam qof dhan oo ilaahay abuurayey subxaana wa tacaala oo arsaaqadiisii uu rabbi ballan qaaday oo caafimaadkiisii uu rabbi ballan qaaday oo luguhu ku socon lahaa aadan adu u samaynin oo indhuhu wax ku arki lahaa aadan u samaynin oo dhegihii uu ku maqli lahaa aadan adu u samaynin oo caloosha cuntada u celinaysa aadan u samaynin oo meeshuu ka kaaji lahaa adugu aadan u jeexin oo meeshuu ka saxaroon lahaa aadan u jeexin oo meeshuu hawada ka qaadan lahaa aadan u samaynin subxaana allah allaha subxaana wa tacaala ilmaha noocaas oogu talagalay inuu adduunkan camiro oo aadan garanaynin makay adduunyada oo dhan ay haah ku dhihi lahaydba oy ku degi lahaydba oo ilaahay kitaabkiisa dalka ku xukumi lahaa oo maxaa la yidhahdaa dalkan camiri lahaa oo ay sulaxo dad saalixiina ay ka soo bixi lahaayeen aadan garanaynin haye adeerow ma og tahay ilmaha noocaasa inuu noqon karo ilmaha ilaahay subxaana wa tacaala sababkiisa aad jannada ku gasho bal xadiidka ila dhegeyso fii saxiixi muslim min xadiidi abi hurayra annabiyu sa'ala calayhi asalaatu wassalaam nabigu su-aashan uu saxaabada weydiiyey si fiican ila dhegeyso wuxuu yidhi maa tacudduuna alraquuba fiikum qofka gablanka ama taqaanaan waxay dhaheen qofka gablanka ah waa qofka aan lahayn carruur iyo wiilal iyo gabdho iyo xoolo aan midna lahayn ma aha buu yidhi qofka gablanka ah waa qof qiyaamo imaan doona waan ku celinaya xadiidku waa saxiix fii saxiixi muslim min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu wa ardaah wuxuu yidhi gablan waxaa la yidhaahdaa qof maalinta qiyaamo imaan doona asagoon adduunyada qofna ogu soo saqiirin ya allah ayadoon adduunyada qof ogu soo dhibanin ilmo yar marka aakhare markii la tago kuwii yaryaraa ee adduunyada kuu saqiiray way kugu soo yaacayaan markaasay rabbiyo wuu i dhalay iguma raaxaysanin rabbiyo wuu i dhalay waxa weeyaan hooyaday 9 bilood bar caloosha aankay igu waday kadibna ayadoon indhaheeda ku raaxaysanin nacfigaygana ayna dhadhaminin ayaan rabbiyow naarta ka ilaali markaasaan leeyahay ayagan idinku dembi dhaaf allahu akbar ma og tahay ma laga yaabaa kii aad jannada ku geli lahayd inuu yahay adduunyada aakharada ujeedaa adduunyada ma og tahay goorta aad weynaato haddee laguma siinin maxaa la yidhahdaa cimri intaa doontee xunuun baa kugu imaan kara maanta maanta caafimaad baad qabtaa allahu akbar maanta waad ordaysaa laakiin berri maxaa dhici kara xataa cimri kastoo lagu siiyo berri waata 80 sano markaad gaadho oo indhuhu ay damku dhahaan oo ilkuhu ay kaa daataan oo gawsuhu ay kaa daataan oo lugihii bajaqku noqdaan oo musqusha aad geli weydo haye ka waran ilmahan maanta aad diidan tahay hadduu yahay kii gacanta ku qaban lahaa ee musqusha ku geyn lahaa ee saxarada baambarka kaa bedeli lahaa ilahay baan kugu dhaariya ilaahay u toobadkeen subxaana wa tacaala oo ilmaha ilaahay ku siinayo jeclow oo ku faraxsanow adiga cunto ooma haysid ayagoo caloosha ku jiraa loo qoray wax alla wixii maxaa la yidhahdaa ay cuni lahaayeen saan hore u sheegay caafimaadka ma haysid oo cunto ooma haysid sabab baa lagaa dhigay ilmahan caloosha isagoo ku jira wixii loo qoray unbaa soo aruuri lagu yidhi oo shaqaadii lagugu siiyey faqad warku waa inta gabadhana waxaan leehay khayr badan allaha ku siiyo sabarna allaha kugu arsiqo awlaaddaas usan ninka rabinna ilaahay kuguma qadiyo adduun iyo aakhiraba kuwa baari ah ilaaha kaaga dhigo kuwa baari ah oo aad ku degto oo aad ku raaxaysato ood adduunyada ku ciilbeesho aakharana aad janno aad ku gasho rabbi baan kaaga baryayaa ilaahay ha kaaga dhigo subxaanahu wa tacaala asagana ilaahay xaqa ha tuso hana soo hanuuniyo carruurtana kuwuu ku soo hanuuni lahaa ilaahay ha oga dhigo subxaanahu wa tacaala riyo uusan ku talagelin ilaahay ha tuso subxaanahu jalla wacala ficilla uusan ku talagelin ilaahay ha ka tuso carruurtii uu doonayey inayna dhalanin markuu arko ilmihiisi oo salaada tukanaya ilmihiisi oo soomaya ilmihiisi oo aabbale ilmihiisi oo dhabta kaga fadhiya ilmihiisi oo qalbigiisa ka gelaya ilmihii oo maxalliga ka daba ordaya waxa weeyaan qalbigiisa ilaahay inuu hanuun ku soo tuuro ayaan ilaahay oga baryaynaa subxaanahu wa tacaala
صبر يا دلقات قبر يرباتهاي شنتا عروسة يا كبضنا الله كو أرزقه عافمات قبا دين يضل إذن كبا إذن أذيقا والله أعلم